وابا صلاة جمعة خطبة إيضا لغا بحي أيا ولال أن صومالي أهين أو مسلم أها أيا إنتو إيمد بوحوير الشيخو والول أدون ما أنت مكو هيا مركز أنا رأقف وسنهين مياجرة وح أتكول والسنتاي ما أنت مجران طبعا بقول لا شيء بالله يا بأنا كول والسنة ما يحلك الشيء أو والك أقبض النلش هذا كهية هلك الشيء أو عاوه دي أود لجوسي إن أد وحكقبة أتكقبا كري لهاي لبا معها صدح معها أفر معها هل شيء أود دي لجوسي 5 دقيقة أما 5 البرقسي أد وح أقبض دلي كرته محي أهان لهاي مساجد كانوا كلام جوجنا هل كان انتاجنا ما حسوستو ريدي أن كو إريسان أو إري لكن وحن حسوستا إن كو إري باهي الله ونحرسته ومركا آدو حنون سنة أو كانسر أو هيي دور بلاد من دا سنة كهر انتو إلهي وسن أوفسن أيالا أن أمالين إنان كو إري هدي ما أنت أود أن لهان لها أن وحكو قبته أن وحكو بدلي كرو أن قف وحسين كرو أن أوغا إنان السين كرن أود هدي عاول السين لها باهي أو صدن سنة سرير سارنا أيان عافمات سين لها وأن أوغاهي أو إلهي بحية لكن ده واسك سؤال وايهي markaasaan iri adiguna markaasuu wuxuu yidhi walaalow 25 sano oo la soo dhaafay mas'alo idhibayso kurba igu haysay ayaa ilaa maanta igu haysa walwalka ugu weyn iyo walaaca ugu weyn iyo muraaradalaaca ugu weyn oo noloshayda maanta aan oran kara wuu hayaa oo qalbigayga kala googooyay ilantu ay dib igu noqotay يعني عيل يا مرارد الله عدرتيس أيسن حتى يجسوا بحينن ومسألة شن إلا 20 سنة اسكسيون إيه هيد وحشة لا يقول بالله وذي معها سنة كهر وح بالله وذي معها تضرب سنة كهر وح بالله وذي معها شن إلا 20 سنة وربع قرن مركزان إري محي هيد وحويري شن إلا 20 سنة كهر أيان أنا قبل أن أسقبنه أنا سجور سنة وحي هيد مالن فرحت بدن oo de qof walba reer iyo safarkaas farxad la bilaaba waa maalin farxadeed wuxuu yiri 25 sano oo la soo dhaafay gabadha ay anigu wax kale ma aanan qaban waxaan raadinayno oo gees ilaa gees bari iyo koonfur galbeed iyo waqooyi caalamka oo idil aan u marnay in hal ilmo ah aan dhalno hal wiil gabar gaaban dheer cas madow maariin ma kala jeclin هل الماء هنا ندلنا هل 25 سنة أو نلا شيء ذا وحن كب حيي سكول إن هذا كم بحن لعج إن تبع هذا كم بحن ضد إن سكول لك سعر كم بحن تعليم كلا إن أسفر كم بحن وح أن أبحيي أو كلا أو ما أنت أرنكر وحسن 25 سنة أو صور في أن قبت ما يجران إلا كنت ندل أيان مرة دختر كستا أو عافمات كإلمها يدلان كقصابسن أو عالم كقلبات كجوجا ويري همدان أتجن شان يلواتن كاسنو كنتن سنان أمرا بور كستا يبهل كستان وقدعا جورنال يماجزين كقصابسن دلان كإلمها يأورك يو أونن آخرين أو عالم كقصوب حشان يلواتن كسنة ويري شنبقل أو كن أو دولار ونص مليون سما شنبقل أو كن أو دولار أيان 25 كاسنة كب حيي ماشي مالن لا يقول هذا دختر باجوجا ودتسانو كلا انتهى كل عضي ساكو يريو ساسا نقول كدب الماء أنا راديو مالن جرمال كان آذو مالن أفريقيا أن سو آذو مالن إنديا أن آذو مالن مريكان أن آذو مالن هل كان آذو 25 سنة وعمري جيجا كجو أن شنبقل أو كن أو دولار oo dhididkayga iyo dheecaankayga aan saacado fara badan mararka qaar kood 3 shaqo oo isku xigta intaan mid ka baxo 8 saaca oo mid kale galo 8 saaca ayaan mid kale galay 8 saaca 24 saacadood halkaas ay ku dhamaadeen waa 3 shift inta waxaan u maray maalin in aan ilmo yeelno oo anna aabe la yiraahdo gabadha aan isla joogno nolosha isla qaybsanana hooyo iyadana la yiraahdo oo ilmo yaroon dhalnay aan aragno
oo socda oo sii socda oo soo socda oo habeenkii nala seexda oo xataa dhibka ilmaha waa farxad insaanku uu u baahan yahay subxaan allah waxaan soo xasuustay allah jala jalaaluhu yahabu liman yashaau inaatha waxaa laga yaabaa halkan rag baa fadhiya caawa ama hooyooyinba 5 gabdhood leh haddii caawa aan weydiin lahaa maxaa maanta jeclaan lahayd ubadkaaga markaad ka fakarto reerkaaga wax miyaa kaa maqan waa laga yaabaa halkan inay hor fadhiyaan qof i oran lahaa inuu jiro warniyo 5 gabdhood baan leeyahay alxamdulilah dhib kuma qaba laakiin ilaahu yaa wiil iigu dara ama laba iigu dara wayahabu liman yashaau dhukuura ilaahay cidduu rabana isagaa wiilal siiya halkana laga yaabaa caawa inaan isla fadhinno aabbe iyo hooyo haddaan weydiiyo maybe sheekh maxamed inaad adiga ka mid tahayba ma ogi aan oran lahaa ubadkaaga iyo ilmahaagu maasha allah wax walba soo ma aha dhegdheg ma aha niyahow waa alxamdulilah horta wax dhibaataa ma jiraan laakiin 6 wiil ayaan wax aan ku sameeyay garan lahoo dhibkoodii aan la seexan lahaa habeen iyo maalinba bal waxaa la yidhi gabdhaha ka naxariis badan gabar iyo laba hadduu ilaahay siiyo niyahow waa balaysoo ducaa sheekha labana cidina midna gabdhuu siiyaa midna wiilashuu siiyaa wiilal unbuu siiyaa midna labadu isugu daraa dhukraanan wa inaatha halkan waa fadhiyaan hooyaday waxay dhashay 4 wiil iyo 2 gabdhood waa la isugu dara halkan qof baa fadhiya 4 wiil iyo 1 gabar 3 gabdhood iyo 3 wiil 2 gabdhood iyo 4 wiil ilaahay uu isugu daro nimceeyo barakeeyey wayajcalu eebaa ka yeela halka loo soo socdo wataa man yashaau cidda uu doono markaa waxaan soo xasuusan walaalkii maalintaa su-aasha i weydiiyey oo waagaas igu yidhi cimrigayga oo dhanba wakhti u dhigma ayaan waxaan raadinayaa hal un ilmo ah in ilaahay uu isiiyo lacag noloshayda say u eg tahay aanan aragna igu yidhi waxaan ku bixiyey hal ilmo ah unsaan ku heli lahaa ilaahay og yahay inaan arki doonaba lacag intaa la eg noloshayda kollay weli aanan arag yaa aan ku bixiyey wayajcalu eebaa man yashaau ka yeela man yashaau cidda uu doono caqiiman caqli kastuu leeyahay lacag kastuu bixiyo cid kastuu yaqaano caafimaad kastuu doono dhakhtar kastuu la hadlo ajashi eebaa waxay noqotay ilaahay ayaa xukmay in uusan weligiis aabba noqonaynin wiil iyo gabar toona inuusan dhalaynin caqli kastay leedahay cilmi kastay leedahay qurux kastay leedahay si kastoy deeqsiyad u tahay oo wanaagsan tahay oo ilaaha xukmay iyana inaysan hooyo noqon doonin weligeed haddana aysan ahayn barrina aysan noqon doonin ilaa maalinta qiyaamana aysan dareemi doonin dhadhanka hooyanimo waa dhadhan gooniyo insaanka uu dareemo oo macaankiisu uu ka duwan yahay dhadhan kasta oo aan dareeno ama la dareemi karo macaankiisu uu ka duwan yahay qofkii ubad leh oo ubadkaasi maalin intaad bannaanka dad isku soo layseen ama shaqo dheer aad ku soo daashay oo caguhu ku barareen oo caawo dhan aad taagnayd iyo maanta oo dhan inta guri aad timaado ilmo yaroo dhashay ay ku soo ag fadhiistaan oo madaxaaga iyo garkaaga iyo timahaaga iyo cagahaaga ku ciyaaraan unbaa garan kara macnaha iyo dareenka arrintaas ay qadiyadaas ay xambaarsan tahay unbaa garan kara oo waxaanan garan karin qof sida walaalkaas oo kale intaasoo meel maray wuxuu yidhi waxaanse ku soo gabagabeeyo yidhi noloshayda sheekadii noloshayda 2 shay marka af ingiriis buu markaa igu leeyahay 2 shay ayaan yacni waan ka arrintaas waa ka joogu yidhi waa bis waa dhammeeye waa ka bogsada waa dhammeeyey buuggaas waan xiray inaan lacag dambe iyo dhakhtar dambe aan ku bixiyo ubad inaan doono saan hal un u heli lahaa 25 sano waa ka bogsaday waa ka joojiyey wuxuu yidhi 2 eray oo mid wuxuu yidhi waa daalay I am tired waa daalay wax kastaan sameeyey cod kastaan la hadlay sheekh kastaan ii ducay dhakhtar kastaan maaragtay waana weydiistay kow waa daalay 2 wuxuu yidhi eraygu yidhi baan idin orane I am content waxaan ku qancay in marxaladayda iyo xaaladayda sida ay tahay aysan weligeed iska bedelaynin
waana daalay waana qanca waa bogsaday macnaha waxaan ku bogsaday oon ka bogsaday in ilaahay wuxuu ii qoro mooyaane aanan helin wax kale lacag kastoon bixiyo dhakhtar kastoon la hadlaba akhi almuslim wa ukhti almuslima imisa caawa halkan fadhida oon maalinna shilin aanan gelin ubadka aad leedahay in ilaahay uu ku siiyo imisa caawa halkan fadhiya dhallinyaro oo guurdoon oo ilaahay guur wanaagsan oo farxad iyo kalgacayl iyo xushmad iyo iimaan iyo naxariis aan gaboobin oo duqoobin ilaahay ha siiye imisa guurdoona caawa oo wax walba oo kale oo maskaxdooda ku jira ay tahay talow lacagtii arooska aan ku dhigi lahaa halkee laga keeni lahaa gabadha reerkooda goorbaan ka dooni lahayn odayaashii raaci lahaa cali iyo cusmaan mooyaane jaamac ma ku darsanaa masaa'ishaas ay qalbiga uga jiraan oosan marnaba aysan xisaabtaba ugu jirin ma laga yaabaa 50 sano 40 sano inaan isqabno qofkaas ilaahay calafka igu dari doono oon ubad ilaahay uusan siinin ma laga yaabaa waxaan idiin xasuusiyey anna aan isku xasuusiyey maxaa yeelay ilaahay qofka samafalaha samaha iyo wanaagga uu sameeyo marna ma dayaco in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin walaalkii sanooyin kadib ayaan mar ismaqalna weli ubad ma uusan lahayn gabadhii weli waa wada joogaan wuxuu igu yidhi akhi maxamed diiniyow ilaahay wax kasta oo kale waxaa iiga muhiimsan oon uga mahad celiyaa gabadhii adduunka ugu naxariista badnayd oo ugu dulqaadka badnayd oo iigu jeclayd oo iigu baarisanayd oo iigu hadal macaanayd oo iigu arxan fiicnayd oo iigu ixtiraam badnayd aniga iyo ehelkayga iyo waalidkayba ayuu ilaahay isiiyo inta badan iyadaaba i ilowsiisay mushkilo iyo muraaro dilaac kastoo ilmo la'aantaas 25 sano igu abuurtay allahu akbar ilaahay wuxuu iiga dhaqay wixii aan soo maray walwalkii iyo walaacii kala gooyey walbahaarkii maskaxdayda qabsaday 25 sano waxaan gambar gaaban iyo mid dheer u fuulaba ilaahay wuxuu iiga zuuliyo iiga gooyo iiga dhaqay xanuunkaas gabaraan isleeyahay adduunkuba mindhaa iyadoo kale ma taagna adduunkuba iyadoo kale lama keenin fiiri ilaahay ma uusan dayacin wanaaggii iyo naxariistii iyo iimaankii uu lahaa inkastoo saas uu 25 sano la soo murugooday haddana wuxuu igu yidhi sidaasoo tahay ugu yaraan mindhaa 1,000 masjid oo kala duwan caalamka 50 dal oo kala duwan waa tagaa salaadan isku aadiyaa salaada markaan la tukado imaamkan u tagaa ku dhaha sheekhow dan ayaa ay haysatay walaalo ii soo ducaa xataa uma sheegto waxa ay haysta ilaa 1,000 masjid waa gaaraysaa yiraahdo masaajidda aan tagay caalamka oo anoona cidna u sheegan aan jamaacantaan istaaga mararka qaarkood la ii haysto qof wax tuugsanaya ama lacag weydiisanaya oo day qalbi jabisa laftarkayga walaal war fariiso iraad ma afwan ma lacagna ma weydiisanayo walaalayaal arrin baa ay haysata iisoo duceeya ilaahay inuu ii fududeeyo shaydaanku waa u qurxin lahaa dhowr sano markuu saa ku wado marka dambe wuxuu ku oran lahaaba war meeshan wax dadka meeshan fadhiyo masaakiinta ah waxba kuma qaban karaan iyaguna waxba iskuma qaban karaan iska daa meeshan aad tagaysaaba waqti lumis ah saasoo tahay waxaan ku wada sheekaysanaynaa 25 sano kadib masaajid dhexdiis isagoo salaada jamaacada soo maaragtay soo istaagay marka waa tan koobaade xanuun kasta ood marto hadduusan eebbe adduunkan kaaga abaalmarin tii aakhira waa la wada ogyaho dee eebbaaba ballantaa qaaday laakiin samaha iyo wanaaggu khaasatan midda aad qarsato ood wax badan adoo u qallibi kara aad ku sabarto dad kalena af iyo adin xumaantaada aad ka reebtood ka celiso yani wuxuu yidhi inta jeer ma garan kartid inta jeer oo masjidka intaan istaago ay iqabataba dadka meesha joogo dhanba ma caysaayo ma ku qaylisaa laanna wax kaa tan badan wax iga tan badan ayaa marba maaragtay soo qaada laakiin intaasoo dhan ilaahay kow wuxuu ku abaalmariyey adduunka in farxad iyo sakiino iyo deganaan guri oo laga yaabo in badan inaynaan haysan ilaahay hana wada siiye adduunkan ilaahay inuu ku siiyey dee aakhirana qofka wanaagsan ilaahay jalla jalaaluhu aan uga baryaynaa beeraha firdowsa maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa wasaalixiina ilaahay inuu geeyo innagoo dhanna wada geeyo waa tan koobaad
alimaam ashaafici wuxuu yidhi isagoo og maalin waxaad weydiisato wax ka duwan in lagu siin 10 sanood wax weydiisanaysay in qof dariskaa ah aad mararka qaarkood arkayso oo la siiyey wixii adiga 10 sano aad u ducaysanaysay wax kasta wadada iyo safarka xayaatada iyo agaasinkeeda wada kasto ay kula soo marto luuq kasto ay ka soo rido murugo kasto ay kugu soo rido wuxuu yiri wastarziq illaha fima khazainihi fa innal amra bayna al-kafi wan-nun haddaad rabto wax un ilaahay inuu kugu irsaaqo ubad shaqo cunto cilmi reer quraankood barato waxay noqotaba ilaahay weydiiso oo waxaad ka weydiisataa khazaa'inta ilaahay in uu kaa siiyo ilaan iyagaan marnaba aan eber noqonayn walillaahi khazaa'inu samaawaati wal-ard lillaahi maa fi samaawaati wamaa fi al-ard lillaahi mulku samaawaati wal-ard lillaahi maqaaliidu samaawaati wal-ard account marna aanan hoos u dhacayn 7 bilyan iyo 400 oo kun oo qof ayaa caalamka joogtaa la yiraahdaa gaal iyo muslimba madow iyo cadaanba haddii 7 bilyan iyo 400 oo kun oo qof ay hal mar wada istaagaan oo hal mar bilaabaan inay wada hadlaan oo hal mar ilaahay jalla jalaaluhu wax wada weydiistaan oo qof waliba ay qofka ku xiga wax ka duwan uu weydiisto ilaahay waa 7 bilyan iyo 400 oo kun oo codsi oo kala duwan ilaahay jalla jalaaluhu ma awoodo oo kaliya inuu hal mar wada maqlo 7 bilyan iyo 400 oo milyan oo qof oo waxyaalo kala duwan weydiistay ee ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu awoodaa in 7 bilyan iyo 400 oo kun oo qof oo gaal iyo muslim cadaan iyo madowba leh in qof waliba wax uu weydiistay isagoo barta taagan sida uu weydiistay ilaahay inuu siiyo jalla jalaaluhu yas'aluhu man fi as-samaawaati wal-ard innaga maalin walba wax weydiisana gurigaygaan ogahay inta wax laga weydiisto maalin marxaladdu ay tahay ilaahayow imtixaan ba ku soo socda walaashay ama walaalkay ama wiilkay ama gabadheeda ilaah u fududee maalinta kale ay noqoto ilaahu shaqadii ayaa culays iga haystaa ilaahu meel ka wanaagsan oo ka waasacsan oo xalaal ilaahu risqiga sii maalin waa ilaahu wiilkayga waa ku soo dadaale waa ku soo tiiriya tacabeela wax kastoon haysto iyo waxaan haysanba waa isugu daray ilaahu wax kasto oo qalbiga idilaaciyo sameeyay ilaahu wiilkayga isoo hanuuni qof bay ka taagan tahay ilaahu gabadheeda wax walbaan sameeyay masjid kastaan geeyay iskool kastaan ku qoray tarbiya kastaan si ilaahu waa 30 jir hal maalin xijaab ma aysan xaran ilaahu isoo hanuuni qof bay ka taagan tahay ilaahu hooyaday 30 sano ma arag sharci ma haysto adduunka dacalkiisa kale taagan tahay ilaahu adaa yaqaan saad isugu kaaya keen lahayd ilaahu maalin iyo meel un isugu kaaya keen ma aragta yas'aluhu man fi as-samaawaati wal-ard kull yawm malaha sabti iyo axad jumca la nastana malaha insaanku iyo sanku neefluhuba ilaahay inuu wax weydiisto intaan hadda sheegnay iyo malaayiin kale oo aanan koobi karin waa wax maalin walba iyo daqiiqad walba iyo ilbiriqsi walba iyo asbuuc walba iyo sanad walba dhici jiray hadda dhici doonana ilaa maalinta yawm al-aakhir ilaahay umuuraha insaanka saa u kala dabaray كل يوم هو في شأن مالن والبا إله أمورهن كلا دبره إمسا وحا ما أنت أن ربع عاو هدان هلكره وحا معقولة أبدا يا شيخ محمد عبد الولي إنو سنربين وحكا لأو الربع هل كان مساجد كان أنت نذا كفر لسكلية أيام من دا لابا بقول كنتم صدح بقول وحا النهايبا هدي ما أنت قفوا لهذا هذا محا وحن إلهي ويديس وان هو با صدح ناس بقول 290 إن نجمد أو حيالك لدون إن إيه بويديسن الله جل جلاله إن الله لا يضيع أجر المحسنين